kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan halkan waa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV xaruntiisa magaalada Hargeysa marka waxa la soo gaadhay hadii aan idin soo gudbin jirnay war wixii aan idin ka haynay dalka iyo dibadda qodobada warkeena ugu door corona waxa kamid ah siyaasadeedka horyaal oo xaruntii dhexe ka furtay magaalada Hargeysa isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer oo maanta xilkii kala wareegay isuduwihii hore ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha madaxweyne Goodluck Jonathan dalka Nigeria ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Kano oo ay dhawaan qaraxyo waaweyn ka dhaceen guddiga ay jaamacadda carabta u xil saartay arrimaha ka taagan dalka Suuriya oo maanta jawaab aan wanaagsaneyn kala kulmay dawladda Suuriya daawadayaal kuwaasi waa qodobada warkeena ugu door corona haatana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan urur siyaasadeedka horyaal oo kamid ah urur siyaasadeedkii dhawaan laga dhawaaqay dalka Soomaaliland ayaa maanta xaruntiisii koowaad ama xarunta dhexe ee ururkaasi ka furtay magaalada Hargeysa faafaynta warka waxaynu hayo wariye Cabdiraxmaan Isbatoore urur siyaasadka horyaal oo kamid ah ururadii dhawaan laga dhawaaqay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa maanta xaruntiisii dhexe ka furtay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland filad ballaaran oo loo sameeyay xarunta urur siyaasadka horyaal uu ku yeelan doono magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha urur siyaasadka horyaal Dr. Mustafa Abdullahi Jamac gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadka Dr. Cilmi Maxamed Nuur Professor Cabdisalaam Yaasin iyo taageerayaal badan oo ka tirsan urur siyaasadeedka horyaal hadal kooban oo furitaankii xarunta ka soo jeediyay gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadka horyaal Dr. Cilmi Maxamed Nuur ayaa waxa uu ku sheegay in ururkoodu uu ku dadaali doono haddii doorashada soo socda ee golaha deegaan ku soo baxo inuu wax ka qaban doono baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland tabanayso waxa kale oo gudoomiye ku-xigeenku soo jeediyay taageerayaasha urur siyaasadeedkaasi meel kasto ay joogaan ba inay guruntida dhiisha iskaga dhigaan sidii ururkoodu ay u soo saar lahaayeen dhinaca kale waxaasna halkaasi ka hadlay Professor Cabdisalaam Yaasin oo isna kamid ah mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka horyaal waxaana uu sheegay in xisbiyada badan ee dalka laga dhawaaqay looga baahan yahay sidii ay dadkooda hoos ugu eegi lahaayeen oo dadka dhibaataysan ay wax ugu qaban lahaayeen waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee urur siyaasadka horyaal Mubaarak Cali Cumar waxaana uu sheegay in dhalinyarada reer Soomaaliland ay ka go'an tahay sidii ay u taageeri lahaayeen urur siyaasadka horyaal oo habuuri ururka udana dhalinyarada Soomaaliland gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha urur siyaasadka horyaal Dr. Mustafa Abdullahi Jamac waxaana xuseen iyaga oo maanka ku haya baahiyaha farabadan ee dalka taala haddana ay dhexda suunka ugu xidheen buuri si ay shacbiga reer Soomaaliland wax badan ugu qaban lahaayeen haddii Ilaahay ku guuleeyay wuri doorashada soo socota ee golaha deegaanka Dr. Mustafa Abdullahi Jamac waxa uu guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan ba ugu baaqay in ay wada jir iyo midnimo ogaadaan waxaana uu guud ahaan shacbiga reer Soomaaliland u soo jeediyay inay taageeraan urur siyaasadka horyaal oo habuuri mid dhexda u xidhay sidii qaranka Soomaaliland meel fiican u gaarsiin lahaa gudoomiyaha urur siyaasadka horyaal oo ka hadlaya xafladaasi waxa uu yiri saatan maanta waxana leeyahay khudbadeeya waxana leeyahay hadla annaguna waxaan leenahay khudbadna laga sugi maayo hadal badanna laga sugi maayo waxana laga sugayaa inaanu keenno aqligii wadankani uu wadan ku noqon lahaa dawladaba ku noqon lahayd ummaddu ay horumar u gaari lahayd baana laga doonayaa markaadna taageertaanba culays cusub baa nagu kordhaya waanu ognahay waxana laga sugayo haddii maanta ay taayada noqon lahayd geed galoola ayaanu waaban lahayn oo xafiis ka dhigan lahayn waayo maanta ummadeennu way gaajoonaysaa way biyo laadahay way guryo laadahay way wadooyin laadahay soo maaha miyaad hadal u baahantihiin
hadal haba ma buuxsho annagu ma doonayno inaanu hadal idinla nimaadno waxaanu doonaynaa haddii maanta aan taa nalagu khasbi lahayn oo aan nala odhan lahayn xafiisya cadcad baa laydinka doonayaa taa aanu ku furnay maanta xafiiska waddada halkaa marta ee googo-an baanu ku samayn lahayn iskuullada jajaban ee xaafadan aanu wax kaga qaban lahayn siduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ayaa maanta xilkii kala wareegay siduwihii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha kadib markii dhawaan wasiirka wasaaraddaasi xilkii ka qaaday faafahinta warkan waxaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer loogu soo diray wariye Maxamed British munaasabad ballaaran ee xilka kula kala wareegayaan siduwaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Fagade ayaa maanta ka dhacday xarunta maamulka gobolka Togdheer munaasabadan ballaaran ee ka dhacday xarunta maamulka gobolka Togdheer ee xilka kula kala wareegayaan siduwihii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Soomaaliland iyo siduwaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaraddaasi ayaa ahayd munaasabad ay si weyn uga soo qayb galeen maamulka gobolka Togdheer haween dhalinyaro ciyaartoy iyo waliba dadweyne aad u tiro badan munaasabadan ballaaran ee xilka kula kala wareegayaan siduwihii hore iyo siduwaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa ugu horreynba munaasabadaasi waxa ka hadlay siduwihii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Togdheer Cabdikariim Muraad wuxuuna ka warbixiyay muddadii ahaa siduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer waxyaabihii u qabsoomay iyo waliba marxaladihii kala duwan ee la soo kulmay muddadaasi siduwaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Soomaaliland ee gobolka Togdheer mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Fagade oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadnaqay siduwihii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Togdheer waxa qabadkii muuqday ku talaabsaday muddadii uu xilkaasi hayay waxa aan maanta labaad siin doonaa aan laygu iman ballan qaadayaa in aan samayn doono aan laygu iman doonin nin jacayl iyo nin nacayb xaafad jacayl iyo xaafad nacayb taana ballan ayaan idiin qaadayaa waxaa laygu iman doonaa gobolka Togdheer oo isku mid agaasimaha waaxda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee dalkani Soomaaliland Master Caataye isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadnaqay siduwihii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer wax qabadka muuqday oo ku talaabsaday muddadii uu xilkaasi hayay Master Caataye siduwaha cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer kula dardaarmay inuu isaguna halkaas ka sii anba qaado dadaalka ugu jiro sidii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ay u noqon lahayd mid guul ka soo hoydo koobka gobolada dalkani Soomaaliland ee sanadaha soo socda ka qabsoomi doona dalkani Soomaaliland barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Cabdo Axmed Aayir oo isaguna munaasabadaasi ay xilka kula kala wareegayaan siduwaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo siduwihii hore wasaaraddaasi ayaa siduwihii hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdikariim Muraad ku amaanay wax qabadka muuqday uu ka muujiyay muddadii uu xilkaasi hayay wuxuuna siduwaha cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Yuusuf Fagade oo barasaabka gobolka Togdheer kula dardaarmay inuu qayb weyn ka qaato sidii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer ay u noqon lahayd mid taabagala waxalaala wixii ay ku soo kacayaan dhalinta sports qaybta sportska Togdheer garabaan ugu siinaynaa si kastaba haatee munaasabadan ballaaran ee xilka kula kala wareegayaan siduwaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdiraxmaan Yuusuf Fagade iyo siduwihii hore wasaaraddaasi Cabdikariim Muraad ayaa ahayd munaasabad si weyn u kulmisay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British Television madaxa banaan ee Bulsha TV madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Kano oo ay dhawaan qaraxyo balbalaaran ka dhaceen qaraxyadan oo la sheegayo in ay ku dhinteen dadweyne aad u tiro badan ayaa waxa uu madaxweynuhu u kuurgalaya sidii ay qaraxyadaasi u dhaceen iyo khasaaruhu inta uu leeyahay
madaxweynaha dalka Nigeria Goodluck Jonathan ayaa booqasho ku soo gaadhay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Nigeria ee Kano oo dhawaan qaraxyo isdaba joog ah lagu fuliyay kuwaas oo ay ku dhinteen 166 ruux taasoo ay sheegtay kooxda mayalka adag ee Boko Haram ee Islaamka ah ciidamada nabadgelyada dalka Nigeria magaaladaasi gabi ahaanba baaritaan ka wada kadib qaraxyo ugu ballaadhnaa ee ka dhacay waqooyiga dalka Nigeria taas oo ay ku nool yihiin muslimiin tiro badan sidoo kale waxa waa berigii shalay toole qarax lala beegsaday laba kaniisadood oo ku yaala magaalada Badshay inkastoo aanay cidi qaraxaasi wax ku noqon magaalada Kano ay ku nool yihiin muslimiin tiro badan ayaa ku jirin afartii gobol ee dawladda Nigeria ku soo rogtay bandowga Suuriya ayaa ku gacan sayday gudi ay jaamacadda Carabta u xil saartay in ay ka soo warbixiyaan qaska iyo qalalaasaha ka taagan dalka Suuriya faafaynta warkan waxaa noo haya wariye Maxamed Ciir aw Ahmed wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ayaa ugu baaqay dawladda Suuriya iyo dhammaanba mucaaradka dalkaasi inay muddo 2 wiig ah gudahooda ku soo dhisaan xukuumad loo dhan yahay isla markaana waxay madaxweyne Bashar al-Assad ugu baaqeen inuu ku-xigeenkiisa siiyo awood dheeraad ah si uu caawiyo dawladda cusub ee la soo dhisi doono waxay sidoo kale soo saareen wasiirada arrimaha dibadda jaamacadda Carabta in la kordhiyo korjoogayaasha jaamacadda Carabta u dirayso dawladda Suuriya isla markaana la garab istaago wax kasta u baahan yihiin dhinaca dhaqaale iyo mid maamulba asaada wasiirka arrimaha dibadda dawladda Suuriya ayaa sheegay inay kala baxayaan kormeerayaasha jooga Suuriya taasoo uu ku eedeeyay dawladda Suuriya waxba ka qaban daadashada dhiigga dadka rayidka ee reer Suuriya dhanka kale dawladda Suuriya ayaa ku go'aansaday go'aanka ka soo yeeray jaamacadda Carabta waxayna ku tilmaameen mid ay ku soo faragelinayaan siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka Suuriya si kastaba ha ahaatee militariga dalka Suuriya ayaa wali wada laynta iyo dilka dadka rayidka ee ka soo horjeeda nidaamka Bashar al-Assad iyadoo ay shalayna ilaa 8 ruux lagu dilay magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi midowga Yurub ayaa ogolaaday in cunaqabatayn lagu soo rogo shidaalka ay dhoofiso dalka Iiraan kadib markii ay ka dhaga adeegtay farriimo badan oo uga iimanaya wadamada midowga Yurub faafaynta warka waxaa inoo haya wariye Saciid Maxamed Askar danjirayaasha u fadhiya dawladaha Yurub xarunta midowga ee Brussels ayaa kulan ay wada yeesheen waxay ku ogolaadeen in dawladda Iiraan lagu soo rogo cunaqabatayn xagga shidaalka balse go'aankan oo dhameystiran ay dib ugu dhigeen bisha July ee sanadkan 2022 wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo tiradoodu dhan tahay 28 wasiir ayaa sidoo kale xayiraad saaraya bangiga dhexe ee dawladda Iiraan iyo waliba dahabkii ay dawladdaasi u dhoofin jirtay wadamada caalamka xogayaha arrimaha dibadda ururka midowga Yurub Miss Catherine Ashton ayaa sheegtay in danjirayaashu maanta ka shirayaan sida ay cunaqabatayn dheeraad u saari lahaayeen dawladda Iiraan taasoo ay waxaanay Miss Ashton intaa raacisay in go'aanadan loo gaadhay sidii cadaadis hor leh ay ula kulmi lahayd dawladda Iiraan si ay dib ugu soo noqoto miiska wada hadalka qaar ka mid ah dawladaha xubnaha ka midowga Yurub ayaa ka baqayay in talaabadan ay ku qaadayaan dawladda Iiraan ay waxyeello weyn u geysan karto dhaqaalahooda oo muddooyinkii u dambeeyay la ceerceerayay deymo tiro badan dalka Greega ayaa 4 meelood oo meel ka soo dejiyay shidaalkiisa dalka Iiraan isagoo ka dalbanaya midowga Yurub inuu dib u dhigo cunaqabataynta ilaa inta ay ka helayaan bedelka dalka Iiraan natiijada codad laga qaaday dadweynaha reer Croatia ayaa lagu ogaaday in ay dadkaasi u codeeyeen in ay ka mid noqdaan midowga Yurub faafaynta warkan waxaa inoo haya wariye Cabdiraxmaan Xirsi Kaahin ilka case natiijada ay ka tashiga dadweynaha dalka Croatia in ay ku biiraan midowga Yurub in ay joogto ka noqdaan midowga Yurub ayaa cod aqlabiyad ah 66% waxa ay ku go'aansadeen shacabweynaha dalka Croatia in ay ku biiraan ururka midowga Yurub kadib markii la tiriyay codadkii 99% guushan ay Croatia gaadhay ayaa timid waqti ay wiigagan dambe ay hoos u dhacayso
xamaasadii ku biiritaanka ururka midowda Yurub xilli ay dowladaha Yurub ayna isku waafaqsanayn lacagaha ururka midowda Yurub inay midayso. madaxweynaha dalka Kuweeshiya ayaa u dabaaldegaya ku biiritaanka dowladiisu inay ku biirto ururka midowda Yurub waxaanu yidhi waa maalin weyn in aan ku biirno xuduudda midowda Yurub aad baan ugu faraxsanahay natiijada ka soo baxday tirinta codadka taasi waa dimuqraadiyadda loo wada ordayo. dowladda Kuweeshiya oo hore u saxeexday ka mid noqoshada loo soo bishii 12aad ee la soo dhaafay balse waxa ay si rasmi ah uga mid noqonaysaa bisha 7aad ee sanadka 2012 isla markaana waxay noqonaysaa dowladii 28aad ee ururka midowda dowladaha reer Yurub. warkii oo daawadayaal kala socoteen telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV waa naga intaas intayna warkan mid lamid ku kulmi doono waanigu aan jeclaan cunaye iyo dhammaan akhyaarta telefishinka Bulsha TV oo idinka tagay sidaas iyo nabadgelyo.